xalalla meesha la xamar ku dhex taalo gabdho yar yar oo qaangaar noqon hooyo aaba lahayn kunteenada in lagu xareysto oo meesha caruur looga dhalaxo qalad Soomaha aan gaari laga qaato ilaahay dhibaatada iga soo badbaadiya jikboonti markii liigay ninka jikboontiga siinaa taliyaha joogo shay ka bacdi ninkaas waxa laga qabanayaa le arintan haday sii socdo magaalada qatar ay galay dadka ku nool si wanaagsan oo ma soconayaan de Soomaali dhibaatada ka jirta inaan ka hadlaa rabaa xashiq inoo Soomaaliland iyo Puntland u doodo qalad waaye xalalla meesha la xamar ku dhex taalo gabdho yar yar oo qaangaar noqon hooyo aaba lahayn kunteenada in lagu xareysto oo meesha caruur looga dhalaxo qalad Soomaha marka xashiq dad wax qabanaa xamar dadka shacabka ku nool waxa uu qabto dadkaas dhibaataysan anaga dumar aan in soo baxdo aan nii dhaweynaan la dhaw gaariga aaracno ka bacdi meelaan wadankeena Afrika ay tahay inana geesto nagu dhibaatay qalad xashiq maxamuud dad wax qabanayo dadkaas dhibaataysan kunteenada ku jiraan waxa uu qabto meelaha kale inuu u doodo qalad waayesh dadkiisa iyo dalkiisa baday dhibaataysan yihiin maxaa dadka kalaas u dooday mideeda kale ciidanimada shalay waxa uu qortay shacabka ku nool dalkiina waxa uu qabto ma dadkii dalka anaga waxa noo qabta anaga u baahan oo meelaha kale dhuqdhuq dhaha dibka adiga ku dhaca kale aniga iguma dhicin laakiin bariwa dibka walaalkay ku dhacana uu soo socda gumidka walaalka ku dhacay gumidkiisa adoo ku soo haramaho adiga ma aragtay gabdho dhibaateeyay oo xalan la gis way buuxaan maxaa dhacay hayahe aan gaari laga qaato ilaahay dhibaatada iga soo badbaadiya jikboonti markii liigay ninka jikboontiga siinaa taliyaha joogo shay ka bacdi ninkaas waxa laga qabanayaa le ninka lambarkiisa ma aqoon meesha uu joogana aqoon ma aanan lahayn hayahe wadan kale inta uu doodi lahaa dilkiisa dhibaatay burbur yaalay ma waxa uu qabto haye arintan haday sii socdo magaalada qatar ay galay dadka ku nool si wanaagsan oo ma soconayaan de hayahe xashiq anaga waxa noo qabta shalay markii ciidanimada madaxweyne oo noqonay 114 ee dhikaarkiisa bistoolaha laga dhigaa lagu dhaariyay haye inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax u qabto anaga waxa noo qabto